habeen wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka caawideena idaacadda kulmiye taliyihii ciidanka nisa ee magaalada Dhuusamareeb iyo askar la socotay oo galabta lagu dilay qarax miino oo ka dhaca duleedka magaalada Dhuusamareeb galmudug oo sheegtay inay ku raajoogto dadkii ka dambeeyay qarax ay ku dhamaadeen ciidamo ka tirsan nabadgelyada galmudug madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo kulan ka yeeshay xaaladda waddanka xilli saacado kooban ay ka harsantahay muddaxileedka madaxweyne Farmaajo in ka badan 10 caruur oo cudurka shubanbiyoodka ugu dhintay duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose madaxweyne Farmaajo uu hambaliyay dib u doorashada gudoomiyaha midowga Afrika Soomaalida qaxootiga ku ah waddanka Kenya oo kordhiyay maalgashiga ay ku sameynayaan waddankaasi iyo isbahaysiga hogaamiye Sacuudiga oo qabtay diyaarad u qeyrabtay boqortooyada waddankaas habeen wanaagsan saaxiibayaal waa axad 7 bisha February sanadka 2021 waxaa noo waramaya Cabdullaahi Nuur Cali waa mahadsan tahay Xuseen Cabdulle Maxamed dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan taliyihii ciidanka nisa ee magaalada Dhuusamareeb iyo askar la socotay ayaa galabta lagu dilay qarax miino oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb iyadoo galmudug ay sheegtay inay ku raad joogto dadkii ka dambeeyay qaraxii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb warkan waxaa magaalada Dhuusamareeb nooga soo diray Farxaan Axmed Cabdi rabbi ha u naxariistee waxaa maanta weerar dhabagal ah lagu dilay taliyihii nabad sugidda magaalada Dhuusamareeb Cabdirashiid Cabdinuur Sheekdoon Qooja Yare iyo askar isaga ilaalo u ahayd qaraxa ayaa ahaa miino nooca dhulka la geliyaa ayaa waxaa lala egtay taliyaha iyo ilaaladiisa xilli ay marayeen wadada isku xirta magaalooyinka Ceel Dheere iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayna ku sii jeedeen degmada Guraale ee gobolka Galgaduud weerarka dhabagalka ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay taliyaha iyo 9 ka mid ah ilaaladiisa wasiirka warbaahinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka Galmudug ay wadaan baaris ku aadan dilka taliyaha iyo ciidankii la socday الله نحرسته مركه إن لا رجعون خليه قوتي يعينون لسعودي باور بيوتين شغله ذي كل حجرين فكمينا وضبط لو عاصي يا باور خلك على كذا سنة جيري مشغله وقتي اللي أو قرعان يدوس الرب أجي سوي قصروا سرقات عينك وتوان انتي دور عينك كم دوان انتي أنا واجرا مركه هذا أمن قاولي هذا فراغ وايا لكن إنه جيرو أي دولة عسكرية سركال كعيدة كوسرية وقولش كان أيام عين كوا نوعي استطلاع الغضة بيها إلى عافية نرجعنا بركة نوعي كلا دولة كمان كوا نوع رسل واجرا نوع رسالة واجرا إسلام بركيوا أجاس عندنا كلا دولة قلب كوا فدرال كديان كجوجا أي سكوفي دي أيقونا دبقال يوحس سبعين إلا عندنا هول قل كذا كجيران شقوين كهولا ماشي كيان وليش بود اللي ما يسوي ذاك الميديا هذا أمر يا فلكاسي فلاح وراي حفلة إنه سوي أو سبدورة أيضا وحلوها في شركة عيا وبيس أو مارتي عندما سلاكين دمرتي إنه شخص ناكنه حجنت نوضح حرمها توجه وصل dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ka tacsiidiyay wuxuuna yiri waxaan dhamaan helada iyo qoysaska ay ka baxeen uga tacsiinaya geerida naxdinta leh ee ku timid taliyihii ciidanka nabad sugidda caasimadda Gaashaanle Cabdirashiid Cabdi Qooje iyo askartii kale ee ku shiiday qaraxii qawaarijtu ay la eegteen waxaan si gaar ah uga tacsiinayaa qoyskii asxaabtii iyo ehelkii qaraabadii ay ka baxeen iyo sidoo kale taliska Nisa ee Galmudug iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida al-shabaab ayaa maalmihii la soo dhaafay culays dhinaca ammaanka ah soo saaray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb iyo deegaano fara badan oo hoostaga iyagoona dhowr mar hoobiyaal ku garaacay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Farxaan Axmed Cabdi wararka raadiyo kulmiye Dhuusamareeb geesta kala dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay qaraxii miino ee maanta lagu dilay ciidamada iyo taliyihii nabad sugidda ee magaalada Dhuusamareeb madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kamid ah midowga musharaxiinta ayaa kulan waxa ay kula qaateen guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi xilli xaalad cakiran ay ka taagan tahay dalka mas'uuliyiintan ayaa ka wada hadlay xaaladda cakiran ee dalka xilli ay muddo saacado ah ka harsan yihiin muddo xileedka sharciga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo ay xusid mudan tahay inuu soo jiray heshiis siyaasadeed oo looga gudbi karo xaaladda taagan midowga musharaxiinta mucaaradka oo qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ayaa waxay hore uga digeen firaaq dastuuri ah iyaga oo kal hore shaaciyay guddiyo doorasho lama oga tallaabada ay qaadi doonaan xilliga xasaasiga ah oo looga cabsi qabo ammaanka guud inuu faraha ka baxo
in ka badan 10 caruur oo cudurka shuban-biyoodka ugu dhintay duleedka magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Faafahinta warkan waxa inoo haya Maxamed Cabdixakiin Xirsi. in ka badan 1500 qoys ayaa la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka dhaceen xoolihii beerihii isla markaana ay ka soo barakiciyeen dadkii deganaa 40 tuulo oo hoos tagta degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose waxayna soo gaareen tuulada Buufo Bacaad ee degmada Marka ee gobolkaasi. dadkan soo barakacay ayaa u badan caruur iyo haween waxa ay haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo kuleelka iyadoo ay ka muuqato duruuf adag oo dhinaca nolosha ah haddana ay la ildaran yihiin cudurro sida malaariyada shuban biyoodka iyo cudurro kale oo ay u dheertahay gaajo iyo macluul. dadkan qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay waa kuwan isku barakacnay saddex tuulo idna saddexda tuulo tiiwadayn may la aree daariyo wala aree da'daan ana jiro laxdan iyo way ki jira ila 5 sano meelaka ilma dhali ilmo ka dhaleen ilmo shan ilmo ka sii dhaleen hantidii aaday aaw kay taaween iyo hadda fiiriyo isku taawi ninka aniga qoys way jira 84 sano hadda guru la'aan iyo raashin iyo ontay caafimaadka iyo hadda ninka dhib kuleel caafimaadka ilmo qandhada sugunka ni daawin isla daarsiyo oo daawin isla daarsiyo oo cunto isla daarsiyo oo guryihiin waa kay rafaajo inaan biyo kul iyo intay macna guryaha maxay ka dhisada lahayn inaan si halaas dhibaatadaas aan haysan beero inta abdaan wala inuu ka tacbadan lahayn ma haysana beero bila aan haysan dhibaatadaas aan haysan. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambeliyay gudoomiyaha ururka midowga Afrika Mudane Muuse Faki iyo ku-xigeenkiisa Marwa Dr. Monica oo dib loogu doortay hoggaanka midowga Afrika. madaxweynaha ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in hogaamiyaasha qaaradda ay wadajir uga shaqeeyaan qorshaha heer qaaradeed ee ku aadan ilaalinta nabadda, ka hortagga colaadaha, hirgelinta yoolka horumarka waara ee qaaradda, la dagaalanka argagixisada iyo saboolnimada. sidoo kale wuxuu xusay in dawladda federaalka Soomaaliya ay sii xoojinayso doorka ay ka qaadanayso adkeynta nabadda geeska Afrika, xasiloonida, horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka iskaashiga ee ku dhisan wax wada qabsi iyo daris wanaag. madaxweyne Farmaajo ayaa ku bogaadiyay gudoomiye Muuse Faki doorka uu ka qaatay dadaalada ciribtirka saboolnimada iyo xagjirnimada oo caqabad ku ah horumarka shucuubta Afrika. Soomaalida qaxootiga ee maalgashanaysa dalka Kenya ayaa korortay. Faafinta warkan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Maslax Abuukar Xaaji. Islii waxay ka mid tahay ilaha dhaqaale ee ay sida weyn ugu tiirsan tahay dawladda Kenya, waxaana maalgashi xoogan ku sameeyay dad Soomaaliyeed oo ganacsato u badan. xildhibaanka deegaanka Kamakunji xaafadda Isliina ay qayb ka tahay Yuusuf Xasan ayaa shaaca ka qaaday in ay sii kordheen maalgashiga ay ku sameysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi gaar ahaan Islii, isagoona sheegay in rajo badan uu ka qabo in Islii ay noqoto magaalo la mid ah Nairobi, ayna iminka wixii ka dambeeya hoos tagi doonin dhinaca ismaamulka Nairobi haddii maalgashiga Soomaalida sidan ay ku sii wadaan. runtina xaafadan way soo kacaysaayo xaafad maba ahaban u malayn iminka xaafad maba oran karnaba waa magaaladii labaad xaafad ka tirsan Nairobi baan ahaan jirnay iminka waxaan nahay magaalo sideeda loo yimaado oo laga ganacsado oo hoteeladeedii leh dukaamadeedii leh waliba qaybta nomad ay ka tirsan tahay iminka. intii ka horeysay meel burbursan bay ahayd oo guryo duugo oo aan lagu jirin inta badan oo dhaqaale sidaasi u fara badan uusan ka soo bixi jireen. maanta waxaa ka dhismaysa gadaasheeda magaalo dhan oo cusub oo dadka Soomaalidu ay soo maalgashadeen. meeshan ka horeysana suuq weyn moolkii ugu weynaa Afrika haddii aanan Kenya kollaytaba ugu weyn yahay ayaa laga dhisayaa. maalin dhawtaan booqasho ku tegay oo hawsha meeshaasi ka socota malayn kari maysid. marka magaaladan magaalo Soomaaliyeed weeyaan, dhaqanka iyo dhaqaalahana dhaqaale Soomaaliyeed weeyaan. runtina meel haddaana dhaqaale ku lahayn waxban kuma lihid. dhinaca kale hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa shaaca ka qaaday in 70 kursi lagu soo kordhin rabo golaha shacabka iyo aqalka sare ee dalka Kenya, isla markaana Soomaalida iminka wax tallaabo ah aysan ku lahayn dhaqdhaqaaqa lagu doonayo in lagu kordhiyo tirada baarlamaanka Kenya.
isagoo u soo jeediyey dadka Soomaaliyeed ee u ololeynaya olole ka socda guud ahaanba Kenya oo xildhibaanada lagu kordhinayo in ay ka fiirsadaan. dadka dhigaysan maqlaan 70 kursi baa la qaybsanayaa xabad oo ma jirto Soomaali 70 kursi la qaybsanaya agaas nin ku leeyahay BBI saddex gobol ayaan ka deganahay Garis Wajeer Mandera 10 gobolna waan u badannahay Soomaalida wasiiraan ku leenahay 70 kursi baa miis loo qaybsanaya 10kii waxaa la qaybsaday kuraas baarlamaani ah culuwa ku jirta marayna kuraas baarlamaan la qaybsaday waxaa la qaybsaday 90 kursi baa la qaybsaday 90 kursi baa la qaybsaday 7 kursi baan u keenay Soomaali. Maslax Abukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. weli waxaad nagala socotaan idaacadda Kulmiye waxaa inoo socda qodobadii wararka dibadda balse markan isbahaysiga howlgalka ka wada Yemen ee hogaaminaya Sacuudiga ayaa sheegay in gantaalada lidka diyaaradaha ay qabteen diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin oo ku wajahneyd dhinaca boqortooyada Sacuudiga. diyaaradaasi oo ay soo direen Xuutiyiinta si loogu weeraro Sacuudiga. Xuutiyiinta weli kama aysan hadlin arrintan balse afayaan u hadlay isbahaysiga howlgalka ka wada Yemen ayaa sheegay in diyaaradda la doonayo in lagu weeraro dadka shacabka ee ku nool gobolka dhaca koonfurta Sacuudiga. arrintan ayaa imaanaysa maalin uu kadib markii Mareykanka uu shaaca ka qaaday inuu ka laabtay go'aankii ahaa in liiska argagixisada uu ku daray Xuutiyiinta. guud ahaan warkii habeenimo oo kala socoteen idaacadda Kulmiye waa naga intaan warkan war lamida ku kulmi doono sida iyo nabaday.